cafi waad cafini walaalkaaga muslimka ah ee cafi cafintu waxa ay leedahay faa'iido fara badan yacni waxaad dareemi doontaa xasilooni haddii aad cafiso qof walaalkaaga ah ee wax kala dhexeeyey cafintu waxa ay leedahay waxyaabo fara badan oo alla subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa inoogu sheegay xabiibkeena muxamedna inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam faa'iidooyinka ay inoo leedahay cafinta waxaa ka mid ah qalbigaaga oo kuu xasila sharaf oo aad alla subxaanahu wa tacaala agtiisa ka heshid ajar oo lagaaga qoro xag rabbi alla weyne oo ku jeclaada sidoo kale dadka dhammaan oo ku jeclaadaan qalbigaaga oo culeysyada ka degaan aakhiro oo aad miisaan badan ku heshid cafintaada cafisa walaalkaaga muslimka ah la dhaqanka dadka oo wanaagsanaada sidoo kale bulshada oo kaa dhigta qof haldoor ah yacni qof ay ku daydaan sidoo kale hantinaysid dhammaan qulubta aadanaha intaa waxa ay ka mid yihiin faa'iidooyinka oo cafinta inoo leedahay walaal cafi walaalkaaga muslimka ah nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu inoo sheegay inaysan bannaaneen qof muslim ah inuu qofka kale walaalkiisa ka hijrooda ama ka aamusa wax ka badan 3 maalmood sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu inoo sheegay inuu khayr badan yahay kan bilaaba salaanta kala hijroodkoodii kadib waxaad doonaysaan in ramadaan uu inoo bilowdo annaga oo midba midka kale isku caraysan taasi ma ahan midda wacan ee wanaagsan furbog cad oo ka mid ah noloshaada iska ilow waxyaabihii ku soo maray adiga oo kara ama awooda in uu aarsado alla subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aankiisa kariimka ah ku leeyahay wa in tacfuu wa tasfaxuu wa taghfiruu fa inna allaha ghafuurun raxiim taasi oo macnaheedu tahay haddii aad cafisaan oo aad saamaxdaan oo aad dhaaftaan alla weyne waa dhaafe yacnii naxariis badan alle waa uu dhaafaa qof weliba oo ka toobadkeena dembiyadii uu galay ama gafafkii alle haynaga yeelo kuwii dembiyadooda la dhaafaa alle haynaga yeelo kuwii nabad khayr iyo barwaaqo lagu gaarsiiyaa bisha barakaysan ee ramadaan haddana ka faa'iidaysta allow waxaa ku weyddiisannaa cafintaada iyo gaarsiinta bisha barakaysan ee ramadaan allow inaga yeel kuwii qalbiyadooda wanaag uu ahaaday allow inaga yeel kuwii aad dooratay oo aad jeclaatay allow cafin ayaan ku weyddiisannaa allow ina cafi oo dhaaf dhammaan dunuubteenna waxaad tahay dhaafe allaahumma aamiin allow naga aqbal ducadeenna